waxaa maanta si heesara ah loogu soo dhaweeyay magaalada Qorele ee ka tirsan gobolka Sool garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag Cayn iyo gobolka Doolo oo ka yimi wadanka Sacuudi Carabiya khaasatan magaalada barakeysan ee Makka una aaday umrada sidoo kale garaadku waxa uu safar ku soo maray magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya soo dhaweynta garaadka ayaa bulshada ku nool magaalada Qorele ay u kala harin iyagoo kaga hortagay meel hilaadii u jirta magaalada 15 kiiloomitir kala soo galbiyay gudaha magaalada Qorele sidoo kale soo dhaweynta garaadka waxa qayb ka ahayd guddiga qabaqaabada shil Bari oo ay beeshu ku qabsan doonto dhawaan magaalada Qorele hore waxa halka ka hadlay gudoomiyaha qabaqaabada shirka iyo xubno kamid ah guddiga waa mahadlo halkan isugu keenay inagoo ka tashanayna dareen waxaad ogtihiin muddo hadda xilli ay ka soo wareegtay khayr Allah siiyo dhaqankeena oo garaadka iyo uqaasha ah inay inoo cilaamiyeen ama inoo ballamiyeen bishan aynu ku jirna 20keena shirkaasoo shir nabadgeliyo iyo alla bari iyo muwaafaqo ku saabsan shirkan maanta la isugu yimi waa shirkii beesha ku ballansanayd 20ka bisha bishii afraad sanadka lagu asteeyay magaalada Saxdheer garaadka gudoomiyay shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob sidii ummaddu hawlaha beeshu hawlaha u yaala haddii laba ku rooyahay ama dadka kala dhaxeeya haddii laba ku rooyay dhaqanka ay u urursan lahayd oo u dhameystiri lahayd iyo sidii nabadgelyooyinkii la soo xiray haddii laba ku rooyahay deegaanada loo si adkayn lahaa ajandihiisu labada qodob weeye waana shir dhaqan waana shir nabadgelyo insha Allah taala beesha haddii laba ku rooyay arimaheeda dhaqanka iyo nabadgelyadeeda kaga tashanaysa halkan la isugu imaan doona insha Allah taala 20ka bisha lixaad ama 20ka bisha Juun qofba si u yaqaano waana shir ka caagan arimaha siyaasadaha iyo wixii siyaasad ah oo dhaqan ah oo siyaasad ka badhaxla insha Allah taala arimaha nabadgelyadana ugu weyn in salka loogu dhigo oo sees adag loogu dhiso hadii Ilaahay idmo gabagabadii waxa halka ka hadlay garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag Cayn iyo gobolka Doolo Garajada Gardani isagoo laga macdiciyay sida qiimaha ahayd ee bulshada reer Qorele u soo dhaweysay inuu maanta halkan ku wada qadaynay Allah saamaha leh Allah cilmiga ina siiyay علم الإنسان ما لم يعلم ودن كان وحبا يسو جيرين la isaga kala gayoon Allah intuu nabad inoogu bariyay maantana isugu keenay nabad Allah saamaha leh Allah nimcadan inoo shubay xilli abaaran ka tagay wadanka oo roobku uu san wacnayn Allah ducadeeni aqbalay mahadda kadib waxaan u mahad celinayaa beelweynta iyo tolweylihii dhulbahantee la socdayba soo dhaweyntii qiimaha lahayd kalgacayltooyada lahayd ilaahay hadduu kuu roon yahay qalbi qaadka ahayd jazaakum Allahu khayra jazaa Allah idin soo dhaweeyo meelu eebba ugu soo dhaweeyo bini aadam waxa ugu wacan jannada Allah ufuudeeda lagu soo dhaweynayo Allah idinka wada yeelo haylaha inaga wada yeelo insha Allah taala guddigan qabanqaabada hawsha culus aynu u igmanay inta ordaysay bari iyo galbeed isaga baxday jazaakum Allahu khayra jazaa ilaahay hawlahooda yana ha u ururiyo الحديث باكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ويري إن الله عون عبده ما كان عبده عون أخيه انت قفك ودنت جود بالشدة وكشقينيو إلهي تيسا قار وكشقيه الله وكشقيه دنه هذا قار كالله وكشقيه شركا أينو كبال لنسنهي أينو وناقا كدونينو أينو خيرك كدونينو أينو ربنا إن شاء الله تعالى كو inaynu eebba ugu mahad noqno oo ugu alla barino wanaagan iyo khayrkanu ina siiyay laba aynu rabno insha Allah taala midnimadeena iyo wada dhalashadeena iyo walaaltinimadeena inaynu ku adkayno ku turxaan baxsano
ilaahay hadduu ku boogadhayano ku wanaajisano ilaahay aynu ku doonayno inaynu taladeenna ku wanaajinno nabadgelyadeenna ku adkayno heshiisyadii nabadgelyo ee deegaankan iyo aynu gallay aynu sidaynu u ilaashan lahayn haddaynaan ilaashan nabadgelyada haddaynaan ilaashan deegaanka haddaynaan ilaashan talada haddaynaan ilaashan midnimadeenna dee waa burburaysaa sida xoolaha inaynu u raacanno aynu rabnaa danaheenna sida aynu xoolaheenna iyo ubadkeenna u raacanno si ka badan inaynu u raacanno sida aynu ku raacan karaynaana waa inaynu mar walba wax iska weydiinno waa Khadar Tarbi Som News TV magaalada Kalabaydh ee gobolka Sool.